ما مقاشا شيخو ها sheekhow su'aal baan qabaa su-aasheedu waxay tahay xaajada aan qabo anuu ninkii shanaad baan 4 nin baa iga soo horreysay واقف ninkii ugu horreeyey isagoo maalin iska hurda ayay dhuunta midi kaga qabatay ay واقف tiri fur amba dalqadaydiisii واقف marka ninkii wuxuu yiri okay waan ku furay واقف cunugna waa u dhashay واقف markii uu xaggii ku furay gurigii waa ka cararay waa ka baxsay magaaladii واقف kii labaad ninkii labaad isagoo hurdabay dhuunta midi kaga qabatay واقف ifur aan baa shahaado واقف kiina waan ku furu dhahay واقف iguma filna xabada saddexdaba ifur bay ku tiri واقف saddexdii uu dhac ka siiyey واقف kii waxaas ayaa kaaga sheekay adig nimanka dhan ma aragtay nimankii ma la kulantay anigu ninkii shanaad baan Soomaaliya kule ma ma la kulanto kuwaas oo midada shahaadka la marsi waan ku soo wada واقف kii ugu hore cunug buu dhashay kii labaad cunug buu dhashay kii saddexaadna sidoo kale isagoo hurday dhuunta midi kaga qabatay واقف ay ku tiri ifur amba shahaado واقف waan ku furu dhahay واقف iguma filne saddexdaba si saddexdii buu dhac ka siiyey واقف kii afraad sidoo kale su-aashaydu waxay tahay adigu midid wiil lagu saarin waan kuu soo waday dhegeyso واقف kii su-aashaydu ugu horeysa waxay tahay mididan dhuunta laga qaban ninka ma ka furmaysa markuu kule waan furay mise kama furin waa su-aasha koobaad kow su-aasha labaad waxay tahay cunugii ugu horreeyey kii ugu horreeyey ninkii ugu horreeyey cunug baa u dhashay kii labaad cunug baa u dhashay kii saddexaad cunug iyo kii afraad intaasoo caruura ma ninkii ugu horreeyey haddayna ka furmayn ma ninkii ugu horreeyaa le mise male waxaan saa ku leh ninkii labaad baa anii soo wacay markaasuu igu dheh war xaajada igama furno cabsi baan ku furay ee cunugaa dhashay anaa lu igu dhahay su-aasheedu waxay tahay ma run buu sheegayaa ma ninkaaba iskale cunuga mise cunugaygan anaa iskale mise nin walba cunugiisu leeyahay mise maxay ahayd de kii ugu horreeya carruurtoo dhan wada leh mise nin walba cunugiisu iska leeyahay nin kasta cunugiisu iska leeyahay waan gartay sababtoo ah dacwada waxaan gudbinsan karo ninka oo xaqa ka maqan yahay hadduu ka aamusay ilaa ninka hadda waa baxyey markii midida laga saaray ma dhihin gabadhii anaa qabo waa ku qanaciyey furiinka maxaa yeeley inkastoo furiinka mukrha uu yahay oo la qasbay laakiin waxaa qasabkaas sheega karo ninkii saaxiib xadadka ahaa marka hadday jirin cid ay sheegato oo ku qanacay inuu furiinkaas dhacay ama uu asaga ay ka ahayd islaantan midida hadda ku saartay haddaad waa qaba aad tiraahidna berri haddana midi kale kuu taalle kii hore qirtay oo furiinka hore inta badan waxay u badan tahay inay qirteen furiinkooda hore mar hadday furiinkooda hore qirteen ee ciddadan ay ka baxday ilaa iyo cunug kale ka dhashay lagama yeelaayo inuu yidhaaho aniga igama furno waan gartay waa dhamaatay insha allah adigana midida iska ilaali maydaan waaban baqayaaba hadda way igu soo socotaaba cunug bay ii dhashay waanba ka baqayaaba baarak allah fik ilaahay ku xafido